qurbajoog u dhalatay dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo ka yimid cariga Mareykanka isla markaasina ka soo jeeda gobolka Faafan ayaa soo kormeeray qaar ka mid ah mashaariicaha horumarineed ee ay xukuumaddu ka hirgelisay degmada Mula ee gobolka Faafan. warbixin umurtaasi ku saabsan waxa inoo haya wariye Farax Bade. mashaariicaha kala duwan ee xukuumadda deegaanka Soomaalida Itoobiya ka hirgelisay degmada Mula ee gobolka Faafan ayaa waxa booqday koox qurbajoog oo u dhalatay deegaanka kuwaas oo ka yimid cariga Mareykanka. qurbajoogtuna uu horkacay wasiir ku-xigeenka xafiiska kheyraadka biyaha ee dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Cabdiraxmaan Curaagte ayaa socdaalkooda booqashada ah waxay ku mareen mashaariic kala duwan oo ay ka mid yihiin buundooyinka sida casriga ah oo dhisan ee xukuumadda deegaanku ka fulisay togaga jarar iyo Faafan oo labada dhinac ka kala xiga xarunta degmada Mula kuwaasoo ka hor inta aan la fulinin ay dhibaato adag ka jirtay isu socodka bulshada iskaga kala goosta dhinacyada labadani tog iyada oo xilliyada roobku da'ana aanba la mari jirin ilaa inta roobku ka qaadayo. waxaa kaloo ay qurbajoogtani soo booqdeen goobaha degmada Mula ka hirgelinaysa mashaariicaha biyo baad beer iyo caafimaad ee dejinta loogu samaynayo qoysaska danyarta ah iyo sidoo kale dhammaan mashaariicda horumarineed ee horey looga fuliyey degmada Mula sida mashaariicda waraabka iyo biyogelinta iskoolada iyo xarunta caafimaadka degmada. booqasho kadibna waxay qaar ka mid ah xubnaha qurbaha ka yimid oo warbaahinta la hadlay ay cadeeyeen inay si aad ula dhaceen horumarka ay arkeen sidaas awgeedna waxay baaq u direen dhammaan bulshada u dhalatay deegaanka ee ku dhaqan daafaha caalamka inay soo maalgashadaan dhulkooda hooyo. hadda waxaan dul joognaa toga jarareed oo biyihii kaa ay socda yihiin buundadiina taa ay tahay annagoo ka nimid xaggan iyo Mula iyo laba ceelo horena aan soo aragnay iminkana ceel halkaan ku aragnay oo horumarka ah. waxaan soo marray iskoolkii waxaanu soo marray isbitaalkii qaybtii dhalmada waan soo aragnay qaybtii bukaanjiifka waan soo aragnay qaybtii emergency waan soo aragnay sidaasaa horumarkii waddanku uu u socdaa. marka dhammaan waxaan u sheegayaa qurbajoogta waddankooda hooye inay maal gashadaan ayna ku soo hirtaan waddankooda yacni heerka uu maraya maanta waa heer aad iyo aad u sarreeya weeye. waxaa naga farxad weyn noo ah maanta inaannu maaragtay waddankeennii si toosa oon cidina nooga warramayn cidina nooga sheekanayn aan u soo aragno intii wakhtigu noo saamaxay degmooyinkaanu soo booqannay maanta. meeshanan hadda joogaa waxa weeye waa qabaleega quraan ee ka tirsan degmada Mula oo saan idin carabaabe maanta degmooyin ka mid ah gobolka Faafan aan maraynay. maaragtay nabadii horumarka jira wax la xisaabi kara maahan ishoon baa macallina qof soo arkay unbaa maaragtay ka hadli kara oo wax ka sheegi kara. marka dhammaan waxaan ku bogaadinayaa qurbajoogteena deegaanka inay waddankooda soo booqdaan soo dalxiisaan kii awooddeeda dhaqaalana maaragtay uu soo maalgashado oo maaragtaa timaadaan. xubnaha qurbajoogta ah ayaa intay socdaalka ku jireen waxay ku damaashaadayeen quruxda dhulka iyo nabadgelyada deegaanka ka hana qaaday iyagoo wakhtiga ku qaadanaya goobaha kaymaha quruxda alla ku manaysay ee jidka hareerihiisa ee u dhexeeya degmooyinka Mula iyo Qabri Bayax kuwaas oo xilligan ah mid rooban oo soo jiidanaya quruxda ka muuqata awgeed qulubta cid kasta oo timaada. dhulkani awalba mid saa qurux badan ayuu ahaa balse sidoo kale looguma dalxiisi jirin sabab dhanka ammaanka ah waxaana sidaan ognahayba amni darradii jiri jirta meesha ka saaray isku duubnida shacabka deegaanka iyo ciidanka booliska gaarka ah ee dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo ay horkacayaan hogaaminta aragtida dheer ee majaraha deegaanka haysa.